disho maanta waxaa gilgilay arooska Cayuuni Qurux oo waliba ahayd arooskii ugu cajiibsanaa ee abid magaalada Muqdisho ka dhaca. Cayuuni Qurux waxay ahayd sanado ka hor gabar caan ka ah social media gaar ahaan TikTok iyo waliba Facebook inkastoo waqtiyadii dambe laga waayay kadib markii qof dhagar qaba ah la sheegay in muuqaal uu ka faafiyay Cayuuni Qurux. Cayuuni Qurux ayaa gabi ahaanba ka fariisatay social media gaar ahaan halka ay caanka ku ahayd TikTok kadibna waxaa hal mar soo shacbaxday arooskeeda oo ah maanta. Haddaba waxyaabaha la yaab kale arooska Cayuuni Qurux laga dareemi karo waxaa ka mid ah in lagu meheriyay 200 oo garaan oo dahab ah, maybe lacag dhan $10,000 waa lacag aad u fara badan, iyo sidoo kale in xajka la geeyo. Walle way nasiibsatay maalmahana Muqdisho arooska Cayuuni Qurux ay u rimaneede, laakiin Muqdisho maanta waxaa gilgilay arooska Cayuuni Qurux oo waliba ahayd arooskii ugu cajiibsanaa ee abid magaalada Muqdisho ka dhaca. Cayuuni Qurux waxay ahayd sanado ka hor gabar caan ka ah social media gaar ahaan TikTok iyo waliba Facebook inkastoo waqtiyadii dambe laga waayay kadib markii qof dhagar qaba ah la sheegay in muuqaal uu ka faafiyay Cayuuni Qurux. Cayuuni Qurux ayaa gabi ahaanba ka fariisatay social media gaar ahaan halka ay caanka ku ahayd TikTok kadibna waxaa hal mar soo shacbaxday arooskeeda oo ah maanta. Haddaba waxyaabaha la yaab kale arooska Cayuuni Qurux laga dareemi karo waxaa ka mid ah in lagu meheriyay 200 oo garaan oo dahab ah, maybe lacag dhan $10,000 waa lacag aad u fara badan, iyo sidoo kale in xajka la geeyo. Walle way nasiibsatay maalmahana Muqdisho arooska Cayuuni Qurux ay u rimaneede, laakiin